degmada Lababaar ee gobolka Qoraxay iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo guud ahaan deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa ka jirta abaar ba'an taasi oo saameysay dad iyo dunyo. Baahiyaha deegaanka ka jira waxa ugu daran biyo la'aan maadaama deegaanku uusan lahayn wax ceel biyood ah markii laga soo tago barkadaha iyo ceelasha gacan qodada ah oo iyagu kal hore guray. shacabka ku dhaqan qabaleega Balidaleel ee waqooyiga degmada Lababaar oo la hadlay shabakada LM24 TV ayaa u sheegay inay baahiyo ba'an ka jirto deegaanka. Bismillahirrahmanirrahim. Ani waxaan leeyahay Maxamed Cabdille waxaan joogaa santarka Lababaar. Adeero dhibaato faaxun baa ka jirta. aad iyo aad dhibaato u baahan baa ka jirta. Biyo la'aan baa u badan. Abaarta ummadda way wada haysaa. Laakiin annaga haddaan reer Lababaar iyo deegaanka ka tirsan qabalka hoosaadida Lababaar hoos yimaada annaga dhibaato waxaan uga matoor la'aan iyo biyo la'aan dhibaatada koowaad waa qodobkaas. waa garta baahida annaga haysa ummadda abaarta waa nala haysa laakiin baahida gaar ahaan wadanka Itoobiya dhibaatada nagu haysata biyo la'aan weeye wax naga saaciday oo mataqaanaa baahidanada naga saacidana waxaa ka jira hoggaanka kilirka oo baahidanada tilaabna ka qaaday iyo ciidamada nala jooga oo new police oo nabadgelyo ilaaliya oo aad uga xun biyo la'aanta dhibaatada haysata waxaan loo ballan qaaday hoggaanka asagoo meelo badan maray sida Lababaar Ceelabreed dhul badan maray Gumbur dhul badan oo wadanka Habargeed degan Baladhiig dhul badan oo maray sida mataqaanaa dhul badan oo deegaanka Habargeed oo maray wuxuu noo ballan qaaday waxa kamid ah oo waliba qayb kamid ah in soo gaartay saan rajeeyno waxa kamid ah biyo inuu bood noo kireeyo xafiiskiisa xukuumadana uu gaarsiiyo xagga sida motor oo kale oo dadkan wax laga bedelo waxana ballan qaad baa waxana waana soo gaareen waxayna loo ballan qaaday waxay ahaayeen motor in loo mudo in biyo nala soo gaarsiiyo oo dadka abaaraha nagula daro qoondaha nagula daro waliba xafiiskiisa ayuu yiri anigu inta karaamkayga kilirka Itoobiya dawladda Soomaaliya waa gaarsiin xafiiskiina bood oo ka qabanaya buu dhanka kale odayaashu waxa ay cabasho ka muujiyeen maamulka degmada Shilaabo iyo kan gobolka Qoraxay oo ay hoos tagaan waxayna ku eedeeyeen in ay duudsiyeen xuquuqihii ay ugu tala gashay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya biyaha markii xilligan oo ka dhaco awal waxaan u doonan jirnay motor la yiraahdo Wacaale degmada naga jartay iyo gobolka naga jaray iyadoo waliba ciidamada nala jooga new police ay ka xun yihiin aad uga xun yihiin gobolka naga jaray iyo degmada halkaan uu biyo marka waxa kale oo jira motor noo dhow oo qabalaha hadda loo baxshay mataqaanaa warxanan la dhihi jiray laga qoday oo dalambiyo kaas muxuu noo jiraa 5 kilomitir wax aadi karana male wax u aroori karana male adeer waxaa sababay dad shacaba oo mataqaanaa hadda ka hor mataqaanaa dhowr nin kala dilo maga kala qaatay oo daawoobay oo maga ka daawoobay oo hadda ka hor dib dhex maray dadka meesha marka dhibka ka daawoowna ayaa maamulka markii dib qorasho meesha ka baxday ayaa maamulka wuxuu noo qabiyaaleystay gurigiisa u shaqaynaya marka hadda caqabada anaga haysato biyaha noo diiday maahan dawladda deegaanka waxay nala soo gaaraa Soomaaliya 200 oo kiiloomitir bay noo jiraan dhibaataasna waxaan ugu kaliftay degmada iyo gobolka ugu kalifay wax awanaada iyo wax biyo awanaa Soomaaliya anaga waa biyo anaga aan gadano oo beeca oo anaga aan gadano oo waliba lacagteeda aan la'anahay iska awoodi weynay in anagu lacagta helo markasta marna oo baqtina marna ninka waxa yahay maanta loo biyo loo gadi kara Soomaaliya nooga iyo waa biyo ganacsi weeye waxa baawur wuxuu nagu keenaa 30,000 oo bir ama 25,000 oo bir baa u yar 30,000 baa u yar wallahi adeero aniga dollar ma aqaan waa mahas waxay u dhigtaa adiga $600 u dhigtaa $600 markii aan soo dhaway adeero xoolo aad u liitaan sababta xoolo carshin aws bidaaqi jira awskina uu yaraaday dhanka kale waxa ay shacabku u mahad celiyeen ciidamada xoogga gaarka ee new police oo inta badan la qaybsada baahiyaha shacabkooda inkastoo ciidamadu ay ku hawlan yihiin oo ciidamada new police gaarka ay aad uga hawlgalaan oo hadda ay nala joogaan oo meel kasta ayagu nabad ay u taagan yihiin colaadaas way jirtaa adeer colaad dad iyo dunya labaduba midna biyaha u dhimanaya من علاقة ودمنا هيا يو عوسلان وحن كأصلنا أننا هدانا رلا ودياش رلا وبار مركور بيجينا جلس وجارو بيجان وده إن جلس وجار حق بيجان ودرن هذا أنا إنك استوى جواه عشان كون نقول هاي وهذا مثلا لقى قاتو وحنا وحادي أنا وحنا ودر بيجي عافمات لا بس هو دمنا بيجي عافمات هذا أنا وحنا كهل مشران وحنا كهل مشران قبل كده دقمنا هوس تجنو dabayaaqadii sanadkii tagay ayaa ahayd markii ay ka soo dayrisay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya xaaladda nololeed ee shacabka ku dhaqan degmada Lababaar ee gobolka Qoraxay Cabdullaahi Farxaan Cabdullaahi Balanballe LM24 TV Lababaar